بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا وناسان داود يالي دي الكلمة من الباقي جوكتان يسول باي نوم غليسان وعد كسول باتان مقال عصوب عن كجهل لدونو شخصي دوني دي براي ياريحان ديديان دروغبا يا سمير نصري وأوغوريو دي عابق كورونا فيروس سامينتو كلها عيارها يحدقها تعسيد او ديري ايا انيسو قد بدونا دوني كبدا عقتا ayaa u barooranaysa geeridii naxdinta lahayd ku timid shaqsiga saameynta weyn ku lahaa ciyaaraha dunida iyo si gaar ah qaaradda Afrika kaas si degdeg ah ugu geeriyooday xanuunka coronavirus xilli uu booqanayo wadankiisa Senegal. Pepe Diouf oo ahaa madaxweynihii hore kooxda kubadda cagta Faransiiska ee Marseille sidoo kalena ahaa wariye caan ayaa uu shaqsiga dunida baray halyeeyga Ivory Coast ee Didier Drogba iyo ciyaartooy kale oo ka mid yahay Samir Nasri. Diouf ayaa sabtidii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Dakar ee dalka Senegal markuu ku soo booday xanuunka coronavirus waxayna eheladiisa ay isku dayeen inay u qaadaan wadanka Faransiiska oo haystay dhalasho wadankaas ah hase yeeshee waxay nafta ka baxday ka hor inta aanan la saarin diyaaradda. 68 jirkan ayaa la sheegay in ka hor inta uusan ku dhicin fayraska coronavirus uu qabay xanuuno kale waxaana markiiba dhibaatada ka heshay hab dhiska dheefshiidka oo keentay inuu si degdeg ah u geeriyoodo. Warbixintan ayaa sheegaysa kooxda Faransiiska ee Marseille waxay ku sheegtay in uu gaaray war murugo leh oo weyn taasoo ahayd inuu geeriyooday madaxweynihii hore ee Pepe Diouf oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa taariikhda kooxdan waxayna tacsiid tiiraanyo loogu direen qoyska iyo dadkii jeclaa. Diouf oo ahaa madaxweynihii Marseille sanadihii 2005 ilaa 2009 wuxuuna xilka kala wareegay Jean-Claude Zarian muddadii 4 sanadood ee xilku u hayay madaxweynaha kooxdan Marseille waxay u dhaxaysay boosaska 2 ilaa 5 hase yeeshee markuu ka tagay waxay u dhacday kaalmaha ugu hooseeya. Marka laga yimaado kooxda Marseille, Diouf wuxuu saameyn badan ku lahaa ciyaaraha kale ee caadiga ah wuxuu dunida keenay halyeey magacyadooda weyn oo wakiil u ahaa kuwaas oo ka soo qaaday qaaradda Yurub keenana qaaradda Yurub. ciyaartooyda oo wakiilka u noqday ee adduunka u baray hadan ka barooranaya geeridan waxaa ka mid ah Joseph Antonio Pell, Marcelo Di Zarian, Pascal Polian, William Gallas, Samir Nasri iyo Didier Drogba. Dhammaan ciyaartooydan wakiilka u soo noqday ama uu la soo shaqeeyay waxaana ka mid ah Didier Drogba, Samir Nasri iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Zarian iyo ciyaartooy kale oo Afrika ahaa waxaana ka mid ah ciyaartooyda Afrika Samuel Eto'o, Felice Andre Ayew, Jordan Ayew ayaana fariin qira leh ku baahiyay barooda bulshada waxayna ka geeyeen ama ugu tacsiyeen qoyskii uu ka baxay Diouf iyo bahweynta kubadda cagta. wuxuu ahaa shaqsi caan ku ahaa in uu soo maamulay ama uu soo saaray ninka maanta ah halyeeyga kooxda Chelsea Didier Drogba iyo ciyaaryahankii hore ee kooxda Arsenal Samir Nasri.